قال العكس صاحب السميس لكن عكسوسي معاه من نرجع عنك والله اولا markaan aniga shakhsiyaadteeda iska hadla aniga waxa la yiraahdaa Maxamed Guuleed xilligii Cabdullaah Yuusuf wixii ka horeeyay waxaana gudoomiyaha nabadgelyada degmada Hodol صح dadna laguma mashibin cidna laguma leeyirin waxaana la kugu soo gabadahay dadka naga in lagu laayo iyo gudoomiyayaalka naga waa dawladdan wadadu waxay u xiran tahay wadadu waxay u xiran tahay gudoomiyihii la degay maxad la dilay qaabka ay dawladdu u dhigtay aad baan uga xunahay haddaan nahay degmada Hodol oo laga dilay gudoomiyihii wuxuu yiri gudoomiyaha gobolka isku dhac ciidan oo ku dhintay mana jira wax isku dhac ciidan la yiraahdo asagoo shirka soo baxa wadada loo galo la dilay inta uu dhihilaa 16 degmo hala soo qabto gacan ku dhiigilayaalkii dhibka geysanto uu dhihilaa aw isku dhac ku dhintay hadalka gobernatooraha gobolka haddaan nahay degmada Hodol aad aan uga xunaa waana cambaaraynayna sida uu gudoomiyaha uu warbixiyay wadaduna waa xirnaane ilaa waji kale loo dhigo wadadu waa xirnaane ilaa waji kale loo dhigo madaxda dawladda waxaan u baaqayaa inay ka noqdaan qaabkii loo wajahay diliinkii gobernatooraha gobolka oo ay raali gelin ka bixiyaan dadkii dilayna cadaaladda loo horkeeno haddii cadaalad la waayo wada waa la waayay oo sida looga hadlamaan si kale looga hadlo sababta gudoomiyaha loo dilay ma garan karo ciidan isxabadeeyana ma jiro waxa weeye wadaduna way xirnaanay ilaa gudoomiyihii degmada laga hadlo oo dawladdu ay wajahday dadkii dilay ama cadaaladda loo horkeeno ma shaqaynayo wax dawladnimo leeyna بسم الله الرحمن الرحيم أنا كهذا قبلها سوماليات walaalkay Cabdixakiin waxaan uga baryayaa Ilaahay horta inuu naxariisto midda kale waxaan leeyahay dawladda waxaan ka codsanaynaa walaalkeen wixii dilay inay cadaalad noo keenaan haday cadaalad jirto oo ma taqaanaa farmaajo waa ki yiri dalka iyo dadka wax u qabanaahay hanoo hor keeno cadaalad hanoo keeno walaalkeen wixii dilay shalow garan ka soo dagay marka qorshaha marka dawlad naloo soo xiraa diriiska naloo soo xiraa oo dadka lagu leeyahay waa iska hor imaad oo leeyahay wax iska hor imaad ma ahana farmaajo waxaan ka codsanaynaa inaan noo keento cadaaladda Cabdixakiin dhagajuun wixii dilay haddana dhalinyarada gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodol waxaana lagu sameeyay Lorayala Musa haddana dhalinyarada gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Hodol waxaan ka soo horjeednaa Cabdixakiin dhagajuun walaalkeen oo shalay oo dhaawaca oo shalay soo degay in xalay si mishina Muqdisho gudaheeda loogu dilo wixii dilana ilaa hadda dawladda ay taagan tahay waa soo qabanay marka cadaaladda farmaajo oo nagu raadinayay ana la sifeeyo madaxweynaha waxa ka codsanaynaa alla horkeeno isgooska tarbuunka iyo aagay degmada Hodol oo ay kala xirnaaneen ma fahamtay nooc walba ma fahamtay dal iyo diin iyo dad u dhaarata farmaajo raaro ما دونينو قادنا سمعنا ما دونين waxaan sugeynaa hadii oo finish ka jawaabayo qolkeena lagu tafiyaa in duqameena ka jawaabayo inaan farxilin aan sameynayno hadii aan ma doonayno waa ka baxna dawladooda siyaasad
way nagu dileen madaxdanadayna ma waa dileen mana doonayno saacadaas laga bilaabo habargidir tarabuunka lagu daahirinaa habargidir mana doonayno دوران رجع فيسبوك اللي قصة إقوى